imanka baarlamaankii dee baarlamaankii aynu soo dooranay kii hore ayaabaad mooday inuu ka dadaal roonaa sanad bay joogaan wax yar loo fasax bay baad ku jiraan intooda badanba waana dhalinyaro waragii islaa waxbay qabanayaan waxaa kaloo la sheegayaa in badidoodu uba dhaqaaqeen inay ganacsi iyo qandaraasyo ay galaan maalmihii ugu dambeeyey waxaad sameynaysay qoraallo kala duwan ood kaga hadlaysay xaaladda dalka qoraallada aad sameynaysay maxay daarnaayeen ku saabsanaayeen saddexdii toddobaad ugu dambeeyey waxaa jirtay in dhacdooyin waaweyn dalka ka dhaceen ta ugu horreysana ay ahayd dabkii weynaaye halkan magaalada Hargeysa suuqa Waaheen ka dhacay dabkaasi dee dhibay weyn buu inoo geystay oo dhaqaalihii waliba dad aad danyar oo dadkii magaalada ku shaqaysanayay ayaa ku tabaaloobay halkaasi dad badan oo kale iyaguna iska ladnaayo dee dhulka ama daaraha la ahaadeen ama ganacsi weyn ku jireen dib bay naga soo gaadhay waana tii lagu qiyaasay in ilaa lacag 2 bilyan gaaraysa ay halka inaga khasaarowday waliba taa waxaa xisaabta lagu sii daro dee ka sii daran dadka nafsiyan waxa ay gaarsiisay in badan oo dadku iyagoo markii horeba dhibaatooyin badan ka soo kabanaya oo dagaaladii iyo dhibaatadii ka soo kabanaya tan oo kale markaas oo kale mid maartii dee muuqanayso oo lacag iyo maadi iyo wax aad ku khasaarteen oo jiraya midaan la arkaynin oo nafsiyanna way jiraysaa laakiin alxamdulillahi rabbil caalamiin waa la isugu tegay oo weynagii u kacnay dadkii baniaadamkana waa inuu u qaashano waa inoo kacay marka iyadoo dee taa aynu arrinteennii ku jirno ayaa waxaa dhacday iyadana in qolooyinkii warbaahinta maanta dhowti jeelka arrintii jeelka iyaduna ay iyadoo weliba dee abaartiina inooga horreysay oo dhacdada abaarta ka horreysay oo taa gurmadkeeda lagu jiray in qoladii warbaahintuna halkaa jeelka dhacdadii yareeda ka dhacday iyagoo tabinaya ay iyaduna halkaasi warbaahintii 15 wariye halkaa si loo xidho loo kala jaado loo qabqabtayba marka laga tago arrimaha dabka iyo arrimaha kale ka warantay waxaad si gaar uga hadlaysay xariga kala duwan ama warbaahinta ama dadka kale sidee arrintaas kula muuqataa adiga arrintaas waxay la muuqataa horta marka hore sideedaba haddaynu dal xor ah oo dimuqraadiya nahay xor marka la yidhaahdo waxa weeyaan Somaliland waa xor waxaana xor ka dhigay dadkeeda marka qofku xorta ahi waxa weeye wuxuu leeyahay qawaaniin baynu leenahay in xornimada ugu horreysay la qadariyo la qiimeeyo qofku dambi uu geli karaa hadduu dambiga galo marka waxa jira dambi dhagar ah uu geli karo lagu qabanayo ama haddii lagu tuumana waa lagu cadeeyaa haddii gacanta uu kula jirana lagu qabtaa laakiin warbaahintu sideedabana waxa weeye xeerku waa laba midi waxa weeyaan waa xeer madaniya midna waxa weeyaan xeer dhagara xeerka madaniga dadka inta badan lama xidho waxa weeye dawladaha aan maartid xorta ahayn nidaam dimuqraadi lahayn baa xidha xeerka madaniga midna xeerka madaniga maxaa ka mid ah qof deyn lagu leeyahay kale ama qof sidaas oo kale qof qadaf ku sameeyay waad soo ashkatoonaysaa laakiin lagu xidhi maayo haddii lagu xidho ganaax buu leeyahay inaga waxaan dhibaatada ugu weynayna haysataa waxa weeyaan qawaaniinteena Soomaalidu waxay tiraahdaa ay yaxtag eersarib meeshan waxaa jirta nidaam 20 sanadood 20 sanadood Soomaaliyeed oo xukumayo dhaalima oo qowleysata ayaa ka tagay qawaaniin ayuu ka tagay kuwii ka horeeyay xataa Talyaani uu ku dhaqmiyay nawajireen isticmaalka ah waliba xagga koonfurta kii Ingiriiska laftiisu uu jiro wuxuu dhan inta la isku wada macmalay oo la isdhex galiyay ayaa waxa laga soo saaray waxa qaanuunka imika aynu ku dhaqmayno ee Somaliland lagu dhaqaya waa wixii la isku wada qalday waxaas laga soo qaaday nidaamkii aynu tuureysiyad barisameeyay de nidaamkii hadaynu xeerkiisa ku dhaqmayno xeerkiisa waxa kamid ah xor maaha saxaafadu inagana waa xor weeyaan xor markaynu leenahay waxa weeyaan saxaafada lama xili karo waa la ashkateyn karaa haddii dambi geysato maxkamadana way iman kartaa dambiga hadduu ku cadaadana waxay leeyihiin ganaax xarig ma laha taa in la isla garto weeyaan waxaan anigu dhowr jeer ku yiri qolada
qawaaniinta war xeerarkan soo jeediya inaynu bedelo waayo inama dhaqaan inagoo dad xoraa dal xoraa doonayna aqoonsigana dimuqraadiyaddii iyo xorriyaddii ku xiran yahay arrimaha ugu weyn ee haddii jeer dhibta inoo keenaa waxa weeyaan waa qof wariye ah oo warbaahinta ka shaqaynaya oo la xidhay ama qof sidii la sheegayay ee qoladan hay-adda xuquuqal insaanku maalintii dhaweyta ay soo saartay dad yow awood leh oo awooddii xukuumadda adeegsanaya. Abdislaan Yaasiin 40 sano ka hor waxaad u halganteen siday Somaliland u noqon lahayd dal jira oo xorriyad u heli lahayd ma ku muuqataa arrintii la gaadhay maanta? ها anigu aad iyo aad baan sida runtii maartay u diilo wanaagsanahay oo waxa weeyaan 30 sanadood kadib markii aynu ama 30 sanadood kadib markii aynu wadanka dubdhiskiisa bilownay alxamdulilah rabbil caalamiin hadday xukuumad tahay iyo dawladii hadday tahay dad bulshadaba meel wanaagsan baynu maraynaa laakiin wax badan baa inaga dhiman marka la meel wanaagsan baynu maraynaa maaha in halkii aynu muddadaa ku gaari lahayn inaynu ku gaarnay ma aha laakiin waxa weeyaan in taa imika aynu gaarnay dhowr iyo 30 sanadood kadib aynu ku gaarnay inaynu dalkeenii nabad ka dhalino inaynu dalkeenii dawlad ka dhalino in dalkeenii ganacsi ka dhalino inaynu noqono xagga isgaadhsiinta iyo isgaadhsiintan cusub ee digital technology-ga dadka ugu adeega weyn aynu noqono waxa raaca waxa weeyaan ee ka dhimani waa maamul wanaag inaynu maamul wanaag wax la yiraahdo samaysano maamul wanaagaanay ku xidhan tahay horumarkan kale ee la doonayo ee imika ay dadku tabayaan hadday tahay maamul wanaagii dawladdii dhexe iyo hadday tahay maamul wanaagii dawladdii hoose labadaasiba aad bay u maqan yihiin aad iyo aad waana tala tabayo ee dadku inta badan ay doonayaan oo maalan dawladda hoose markaad ka soo qaado dee magaalooyinkeena oo dhan dee waad arkaysaa waxyaalaha ugu maartay fududa ishu qabanaysa ee bilicdiya iyo magaaladii oo dee aan xashiishkii iyo adeeg xashiish lagu gurayo midna lahayn dadkii oo haddana dee ku dhex dhaqamo ku dhex noolo daaro dhaadheer ka dhisanayo ganacsiyo waaweyn ku haysta dawladdii dhexe marka ay noqoto wasaaraadkii waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha ahayd in ay dalka u samaysmaan ee biyuu ugu muhiimsanaa biyihii ayaynu iska daa miyigii inaynu biyo gaadhsiino haraadka imika dadkeennii xooleenii haysta aynu ka haqabtiro biyo ay kaga maarmaan marka uu roobku dii waaye abaartu timaado ee jiiraalku dheeraado magaaladii baa dadka biyo ay cabaan aanay ku haysanin waxyaalahaasina dee waxyaalo waaweyn oo cilmi weyn iyo ikhtiraacad waaweyn midna u baahan ma aha waxa weeyaan wax dadku qabsan karayaan oo haddii dee la siiyo lagu jeesto ahmiyad la siiyo oo iyaga mudnaanta koowaad la siiyo مثلا بيو كله مركيبه وينو كاق بير كلينا واريق لا سو قادو لقسو بيو كوي بيهان غود كمريو لا خيرو ayay ku xiran tahay in aynu biyo ka qabtino marka wixii aynu cunayna cunadii baa kamid ah cunada noo dhan in yar mooyaane oo laga yaabo inaynu haruur iyo alabakhiyo wax yar oo aynu beerna ama halkan dalkan jaarkeena dadkeenu inta beertaan inooga yimaado mooyaane inta kale oo dhan waynu dabadeenu ka keenaa marka waxa ay naga dhimanay maanta aynu tabaynaa aynu u baahannahay in aynu 30 sanadood kadib aynu toosinaa waxa weeyaan waa maamul wanaagii maamul wanaaguna wuxuu ku imanayaa doorashooyinka dawladda imika la doortay 5 sanadood bay joogtay 12 sanadoodna way joogaan ururkan kulmiye waa in dastuurka inta si wanaagsan dub loogu furo ururadu mar walba iska furaadaan doorashooyinka xilligooda lagu qabtaa qoladan guurtada loo sameeyaa xeer qoladan kale baarlamaankan kale uu si wanaagsan u shaqeeyaa waxa jirtay inaad muddooyin dheer ka soo hadlayseen sidii loo qaban lahaa doorashooyinkii Somaliland ka qabsoomay ee golayaashii wakiilada deegaanka
waa la doortay golahan wakiilada cusub saad u aragtaa bal shaqaday ummaddu hayaan imanka baarlamaankii aynu soo dooranay kii hore ayaabaad mooday inuu ka dadaal roonaa sanad bay joogaan wax yar loo fasax baad ku jiraan intooda badanba waana dhalinyaro raggii la islaa waxbay qabanayaan waxaa kaloo la sheegayaa in badidoodu uba dhaqaaqeen inay ganacsi iyo qandaraasyo ay galaan taa qudheeduna midaynu ka filayna dhalinyarada maaha waayo qofka mas-uulka noqda ee dowlad xukuumadda u shaqeeya ganacsi hadduu lahaa waa inuu cid kale ku wareejiyaa isagu xukuumadda u shaqeeya laba walaala mar kale cid kale uma shaqayn kartid marka waxaana qolooyinka imika cusub baarlamaanka filayna war fasaxan badan iska daayo dalka u shaqeeya oo waxaanu nahay ummad u baahan in loo shaqeeya ummad fasax u baahan ma nihin fasax hadday xeeroosaadkooda dub ha ugu noqdeenoo halkay 3 biloodna ka fadhiyaan 2 biloodna fasax ka qaadanayaan waa inay markay fadhiyaan 3 bilood waa inay wiig ama 2 wiig fasax qaataan oo fasaxu waa maxay muxuu ku siinayaa qofku wuxuu ku siinayaa ku noqdo meelihii laga soo doortay iyo inuu in nasasho u baahan yahay dabeedna soo noqdo waliba shaqadoodu waa shaqo aad culus maaha waa shaqo maskaxda weeyaan shaqada maskaxda labadii jirkii kuma daalan maskaxda waa loo baahan yahay in maskaxdii laga shaqaysiiyo xataa saacadaha ay shaqaynayaan baa yar saacadaha aynu shaqayno xukuumad ahaan aad bay u yartay oo haddaad isu wada geyso saacadaha aynu shaqayno maalintii halka 8 saacadood oo doonaya laga shaqeeyo shaqada shaqaynaa 4 saacadood 5 saacadood ma dhaafaan dee ummaddu soo koraysana waynu nahay oo doonaya inaynu dalkeenni horumarino qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber